waxaanu eednay abtirsiinada ay nimanka ka hadlayaan waxaanu eednay contract baa la wargini contract ay ku soo saxaxaysaa ma jirto اعتراف ay ku saxaxaysaa ma jirto war dadka yaan la madalufine inakoo miir qabno aan yeelaynin aan wada hadal lama ogola tabliiqa waxa nagu kalifaya jaamacadihii baa la yiri nimankana waxayba ku dhex wareegayaan caruurta iyo haweenka waa jaamacadihii waa kuwii jaamacadaha wax ka dhigayay waa kuwii jaamacadaha dhiganayay nin Soomaaliya 30 jir maanta ah ninka caruur ku sheega dee isaga waxba garan laakiin annaku geed dheer iyo mid gaaban baa u fuulaynaa hadda dagaal yar ma leh haddii ay mucaawano tahay hadday i'tiraaf tahay war cidna waxaan jirin uma sheegayno war nin aan dadka wadankan gudihiisa thiqadooda haysan i'tiraafu meel kale ka heli karaa ma jirto Soomaaliya oo la heshin karaana ma jirto war bal dhaqankii haddii la doodo waa la isla garanayaa wixii samatalis ee fiican oo hadda jaamacadaha iyo sidoo adam sheegayay markaana waxaanu laba hadallaba weynay yaana war tabliiq siyaasi aynu ummadda ku wareegno qoliyaan tabliiqu waa kuwa buraashadahooda iska biyeystay arlada lugeeyay meel walba ku taga masaajidada seexdaan anagu aan siyaasadda lafteedii baa u baahan in buraashadaha loo biyeysto wadanka lagu wareego oo la tabliiqay waa taan hadda ugu soo socono bal gubadle dan ninka madaxweynaha uu ah ama maamulkan golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo hadda kuwa noogu badarane waa kuwa aaga ka yimi meesha aanu ka nimi ee wuxuu doonayno kuwa noogu qalafsan ee noogu afxun ee xumaato iyo been iyo xaalad abuur wadanka kula wareegaya waa kuwa mas'uuliyiinta hadda wax gaara warana dadka ugu weyno waxa laala waxaan ka rabo wax badan baan ku celceliyaa warda ay hadhay ma jirto si loo kala horeyn doonaan Allahu yaclam waxa laala waxaan Somaliland ka rabo ama Soomaaliya ama meel kale wixii aan qaban lahaa waaba soo qabtay laakiin waxa ay dhibaysaa ummad halka joogta oo dhan walba seega oo ka kula wakiil baan ka ahay oo ka ugu daran yahay kala anaa wasiir ah anaa gudoomiye baarlamaan ah meel daran ka dhaca kama wakiila mas'uulna kama aha haddaanu markaa annaku khaldannahay ismadayagina waa kuwa dhibaatada ugu weyn ee nahaysana annaka isugu daran